komishanka doorashooyinka qaranka ayaa gaadiidkii iyo howlwadeenadii ka howlgelayay waxay u kala direen goobaha qaybinta kaararka codbixinta ee gobolka Maroodijeex. Howlgalkan oo ay geesta kalena qayb ka yihiin ciidanka sugaya amniga goobaha kaar qaybinta oo tiradoodu ay kor u dhaafayso ilaa 350 goobood. waxaa munaasabadii ama bixinta gaadiidka iyo howlwadeenada ka hadlay isla markaasina warbixin ku wajahan bulshada howlwadeenada ka shaqeynaya qaybinta kaararka ee ka jeediyay mas'uuliyiinta guddiga doorashooyinka qaranka iyo madaxda axsaabta qaranka. waxa ay maanta halkan ku sugannahay inoo baxaya in ka badan 200 oo gawaadhida Land Cruiserska si ay shaqaalaha yaagabka u qaadaan. waxa inoo bixi doona in ka badan 30 gawaadhida waaweyna oo guri doona ciidamada yaagabka. waxa inoo bixi doona in ka badan 1400 oo shaqaalaha goobaha ah ee ka howlgelaya goobaha kala duwan. waxa inoo howlgelaya ciidamada kala duwan ee ay inoo taliyaashoodii hadda ina barbar taagan yihiin militariga iyo ciidanka biliiska oo ilaa 1000 kor u dhaafay. waxa aynu ka howlgelaynaa ilaa 350 goobood in ku siman. waxa ay magaalada Hargeysa gudaheeda kaliya ay tahay 146 goobood ayaynu ka howlgelaynaa maanta. waxaynu ognahay in marka gobolkan oo kaliya la eego uu u dhigmo 3 meelood meel uu ka badan yahay marka dalka oo dhan la eego. marka baaxadda inta leeg ayaynu maanta hawsha aynu ku guda jirnaa tahay. muwaadin kaarkaaga qaado si aanad hadhow isku ciilkaambiin maxaa uu ninkan madaxweynuhu u yimi waan ka soo horjeeday. adigay maanta gacanta ku jirtaa mustaqbalka Soomaaliland muwaadiniinta gacantooday ku jirtaa. markaa si aad u doorato madaxweynaha aad u arkayso inuu hanan karo waddankan inuu hago 5 sannadood soo socota gacantaada ku dooro. maanta powerkaada leh muwaadin dadweynaha leh powerka iyagay gacanta ugu jirtaa iyaga loo baahayay. haddaba fursadda ha luminina. ta kale waxaan leeyahay iyadana shaqaalahan u dirayno goobaha oo ah dhalinyaro mutacallimiina habliye inamaba leh waxaanu ka codsanaynaa inay hirgeliyaan wixii ay ku barteen maalmihii dhaweeyay wixii aanu barnay iyo sidaanu shaqada u barnay inay uga soo baxaan inay ilaaliyaan inay goobta furaan goor hore kana rawaxaan wakhtigaan ugu talagalnay oo ah 6 subaxnimo in kaarka la furo 6 galabnimona la xidho. waxaanu kaloo ka codsanaynaa inay anshaxa ilaaliyaan inay disbiliinkii aanu barnay ilaaliyaan. dadkay u tegayaan weliba qolooyinka miyiga tegayaa waa dad masaakiina waa dad reer miyiya waa dadaan aqoon lahayn. idinka aqoon u ah haga oo markaad suulka u saaraysaan si wanaagsan ugu saara oo markaad u yeedhaysaan si asluub leh ugu yeedha. dadka ixtiraama. cad mid dheer uga diraynaa dhammaan gobollada Maroodijeex iyo Togdheer dadweynihii iska diiwaangeliyey ee kaarka qaatay inay muddada gaaban ee 5 cishaa wixii caasimada aan ahayn ay ka soconayso ka faa'iideystaan. caasimada wixii magaalada madaxyada gobolladana 7 cishaa loo qordeeyey iyaguna ay ka faa'iideystaan. waxaa runtii aan ku guwaabinayaa gobolka Maroodijeex oo ay maanta halkan aynu joogno waa gobolka ugu codka badan 328 oo qof ayaa iska diiwaangeliyey. marka waxaan halkan fariin cad uga dirayaa dhammaan bulshada ku nool gobolka Maroodijeex oo aan leeyahay maadaamaad ugu tihiin gobolka ugu codka badnaa maantana yaan leedka cod badane kaararka hadda muxuu ahaa Britoola bilaamaya qof walba ku xad ku dadaashaa sidaad u qaadan lahayd muxuu ahaa si aad maalinta doorashada aad ugu codeyn lahayd. halkan maanta insha Allah sida la sheegay gobolkii ugu codka badnaa ee Maroodijeex oo tirada la sheegay 350 ayaa hawsheedii ayay noo socotaa. kaararka la qaato weeye waxaan leenahay kaararka qaato ka faa'iideeya dadweynaha reer Burco ama Togdheer iyo Maroodijeex. waxaan halkan fariin uga dirayaa in maanta ay tahay mustaqbalkoogii in maanta ay tahay 100 sannadood kaarka ay qaadan lahaayeen. waxaanu jecel lahay in kaararkaas si nidaamsan oo sharciga waafaqsan oo aan buuq lahayn
inaad u qaadataan qofna aan u lumin mustaqbalkiisa. taliyaha ciidanka booliska Somaliland ayaa isna geestiisa waxa uu ciidanka booliska ku adkeeyay gudashada waajibaadkooda ka saaran amniga qaranka guud ahaan iyo kan goobaha qaybinta kaararka gaar ahaan. waxaa loo baxayaa hadday tahay Togdheer iyo hadday tahay Maroodijeexba qaadashada kaararka codbixinta waxaan markaa halkan uga dirayaa fariin xagga nabadgelyada ciidamada kala duwan iyaga waxaan farayaa goob kasta oo laga bixinayo kaararka ammaankooda ciidamada ka mas'uula kala duwan ee hawlgalka ku jira ammaanka goobta ciidanka ayaa mas'uulka nin walbana inuu waajibkiisa qaran uu qaranka iyo bulshada mas'uulka weeyahay ka guto ayuu amray yahay taasaan ku boorinaya